kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo xubintii ciyaaraha ee saakay. haddii aan ku horreyno horyaalka dalka ingiriiska ee Premier League waxaa xalay la ciyaaray kulamo xiiso leh. kulamadii xalay waxa ugu xiiso badnaa oo isha lagu wada hayay kii dhex maray kooxda Manchester City iyo Chelsea. 3 daqiiqo iyo bar oo kaliya markii ay socotay ciyaarta ayaa Chelsea waxa ku bilowday gugaca roobkii goolasha ee ku dhacay. Well, it's quick thinking by Manchester City. Raheem Sterling with the opening goal. They're making a habit of scoring early in recent games in the Premier League. 3.5 minutes on the clock. Raheem Sterling ciyaaryahanka reer Britain ayaa goolkii daafurka u dhaliyay kooxdiisa Man City, laakiin goolashu sidaa kuma istaagin. Aguero gets the shot away. Absolutely sensational from Sergio Aguero. weeraryahanka nambarka 10aad u xirta kooxda Manchester City ee u dhashay dalka Argentina Sergio Aguero ayaa xalay 3 gool ka dhaliyay kooxda Chelsea, taasoo noqonaysa markii labaad oo muddo 7 gudihiisa uu dhaliyo 3 gool hal kulan, waxa afka qalaad lagu yiraahdo hat-trick. Aguero oo sidan oo kale 3 gool uga dhaliyay Arsenal 7 maalmood ka hor kulankii xalay ayaa soo gaaray rikoodkii uu horay u dhigay ciyaaryahanka reer Britain ee Alan Shearer oo ahaa 11 jeer oo min 3 gool uu ciyaar qura ka dhaliyo horyaalka dalka Ingiriiska. xagga goolalinta Aguero waxa uu hadda ku biirayaa ciyaaryahanka reer Masar ee kooxda Liverpool Mohamed Salah oo horay hogaanka goolalinta ugu hayay 17 gool. min 17 gool ayayna leeyihiin. ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City ayaa Chelsea loo xambaariyay 6 gool iyo waxba, taasoo Manchester City u suura gelisay inay mar kale xagga ugu sarreysa ka gasho kala horeynta oo ay horyaalka hogaanka u qabato. toddobaadkii la soo dhaafay ayaa kooxda Man City ay soo dubatay Arsenal iyo Everton ka hor intii aysan xalay wajigabax isboorti ku dhigin wiilasha Maurizio Sarri oo 25 daqiiqadood ee ugu horeeyay ciyaarta ee qaybta hore ay ku agagixiyeen 4 gool iyo waxba. wuxuu ahaa toddobaad cajiiba iyo ciyaar cajiiba, sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay macalinka reer Spain ee hadda layliya kooxda Manchester City Pep Guardiola. waxa uu yiri inaad 6 gool ka dhaliso Chelsea iyo sida aan u ciyaarnay waxay ahaayeen labaduba mucjiso iyo ciyaar taariikhi ah oo ay ciyaartooydeeda muujiyeen. Man City ayaa waxay jeebka ku shubatay 30 gool 5 kulan ee ugu dambeysay ee gurigeeda ku ciyaartay tartamada oo dhan, waxaana ay fursad u haysataa inay mar kale Chelsea dhinaca dhulka u dhigto marka ay isku arkaan 24 bishan finalka koobka League Cup ee dalka Ingiriiska. 3 gool ee uu Aguero dhaliyay mid kamid ah wuxuu ahaa gool kulaad ama rigooro. 3 gool ee kale waxa uu kala dhaliyay Man City ciyaaryahankooda Raheem Sterling oo goolkii ugu horeeyay ee kii ugu dambeeyay dhaliyay iyo ciyaaryahankooda reer Germany Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan. Manchester City are tearing Chelsea apart here. waxay noqonaysaa guuldaradii ugu foosha xumayd ee abi taariikhda horyaalka Ingiriiska la dhaxalsiiyo kooxda Chelsea muddo 28 sanadooda. ciyaartii ugu dambeysay ee sidan looga badiyo ayaa 7-0 waxa uga badisay kooxda Nottingham Forest bishii April sanadkii 1991. haddaan dhinaca kala horeynta fiirinana Man City iyo Liverpool labaduba waxay haystaan 65 dhibcood, laakiin waxaa faraqa goolasha hogaanka ku haysa kooxda Man City inkastoo ay dhinaca kalena Liverpool hal ciyaar ka horeyso. kooxda Tottenham ayaa kaalinta 3aad ku jirta oo leh 60 dhibcood kadib markii shalay ay 3-1 kaga soo badisay kooxda Leicester City. Man United ayaa kaalinta 4aad ku jirta oo leh 51 dhibcood. Arsenal iyo Chelsea min 50 ayay leeyihiin. Raheem Sterling got things started in the 4th minute to the champions Manchester City, and he now plunders Manchester City's 6th goal. dhegaystayaal xubintii ciyaaraha oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colaad Xasana inta ayaan ku soo koobaya. ciyaarihii kale ee shalay iyo xalay la ciyaaray ee horyaalada Yurubna waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha ee galabta haddii Allah uu dilo ogolaado.